السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيال سودو هذا ما أنت هدي الله إدمو وحنك هذي دونا 10 آد مهمة. 10 كانوا قصية وحأركتين تصالح هان ضد أما شركة أما لباس دحقف أما ضد ميل وذا شوغا أيامر والبا وحيفايل الكشير جريان وحلو يقانو جيميل كا درايف كيسا أما جوجل درايف كا أي كشير جريان حرعدا قف أيا كسر شبية فايل كي كلنا وسجيا هذا نبدأ كسر شبية وسجيا وحاني توصيا هل فرسمو أو جوجل درايف كلفت جيسا أنا قفري كرنا كمبيوتر كنا كفرينا كمبيوتر كنا مرة كفرنا هل كذا ينك استعمالنا كدي بوحنا سمينا إن كمبيوتر كنا أيونه بوشريا قف كرنا كمبيوتر كيسان كفرينا marka laba step oo yaryar oo fudud ayaan raaci doonaa hadii alla idmo waxaan 10 kan anfici doonaa maaragtay qof walba ama dad koox wada shaqeynaya ama hadii aad laba computer haysato ama maaragtay dad hal email oo kala wada isticmaali kartaan qofka faa'iido kaliya ma aha sharingku waxa kale oo faa'iido ah baan idin sheegayaa in maaragtay mar walba Google Drive ka furi lahayd halkan dhow soo dhigan karto sida OneDrive ka isla socod wanaagsan marka koowaad waxa soo galaysan Google ka laba siyood bay idinkeedin banaan tahay waxa raadsan kartaan how to add ba ku qoraysa Google ka si loogu soo daraa ayaa ku qoraysa dib baad uga noqon kartaa marka how to add Google Drive on Windows 10 ama on desktop ayaa ku qoraysa inta mara ku qortay kadib waxa sameynaysaa waa raadinaysaa linka kugu soo horeeya ku dhufanaysaa linka kugu soo horeeya halkan uu ku keenayaa waa kan marka linkan ku dhufano waayahay waxa u baahan tahay marka gabigaaguba 3 badhanka koowaad waxa sameynaysaa waxa loo yaqaano inaad drive ku duubataan waa install drive kalabaadna waxa weeye inaad pause garaysid kalabaadna waxa weeye status kaaga ama synchronization ka inaad check garaysid marka koowaad waxaan soo roganaa programka oo halkan waa ku yaala linkigaas raacaysan linkigan waxa idin soo gelinayaa YouTube ka dhexdiisa kaas afuraysan waka mara ka furtaan waxaad imanaysan halkan software kan download garaysanayna waa kan inoo soo shubmay software ku markaan download garaysano anu software ka mar hore ayaan download garaystay ama horey uu igu jiray meesha waxaan sameeynaa marka aan soo qabto software ka waa kan Google Drive ki aan soo furo kan ku duubaynaa marka computerka ayaan ku duubaynaa waayahay wuxuu Google Drive uu kugu duuban yahay Google Drive uu kugu duuban yahay ayuu yiri Google Drive ka markuu dhaho uu ku duuban yahay waxa eegaysaan halkan hoose daaqada halkan idiga soo baxaysa baranka yar ay ku qoran tahay Google Drive isaga soo furaysaan isaga marka soo furtaan waxa sameeynaysan setting kaas galeysaan setting ka marka gashaan waxa dhahaysaan pause ba dhahaysaan pause ayaa dhahaysaan pause marka dhahdaan waxa tegisaan Windows CE synchronization ka markaad pause dhahdaan hadana waa soo furaysaan kaliya waa soo furaysaan hadana waxa dhahaysaan waxa loo yaqaano resume Windows CE ba qabanaysaan Windows CE kadib marka soo gashaan this PC waxa arkaysaan Google Drive oo idigu duuban oo hadhowto maaragtay offline idin ah faa'iido marka uu leeyahay waxay tahay Google Drive kaagi halkan uu ku yaala computerka ayuu ku dhex yaala waa istabiska yar ee fudud weeyaan marka hore jooji Google Drive ka faylashaadi halkan dhiganaysaa qofka kale kula isticmaalayna uu kula arkaya my drive kaasa ku sii dhex jira desktop halkaas ku qoranta my drive hadda waxa halkan dhigtid meeshaas ka soo bixi doonaan hadii alla idmo ama folder u samee ama wax kale u sameeyo saaxiibayaal 3 badhan kaliya weeyaan kow ina marka hore ku duubataan laba ina pause garaysaan kadibna dib u soo furtaan aad iyo aad ugu maasantiin daawashada 10 kan waxaan rajeynayaa asxaabta kale la sii wadaagi doontaan السلام عليكم